السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنالك مركلة سودة واضح أدي هذا ومهد سنتين ما أنت واسبتي صدح ذا بش الشناد ماي سنة كلابدا كون يشانيا لباتنك مقالك محربا إن ندي كل وداقو دي في لوتريجي نتيجة دي سي أيا إن دادكو أي كأيغان كران ويب سايت كا دي في لوتريجا للشاعية هدبا مقولي ستي مسمى آذن قوليسان سداسة او ايغان كرتا ايان ربا inaan dadka la wadaago oo qofku uu sida saxda ah uu u eegan karo inuu guuleystay DV lottery iyo in uusan guuleysan inaan halkan idinku la wadaago sidoo kale nin cadaan ah oo 73 jir ah oo wiil Falastiini oo muslima muslimnimadiisa dartiid midi ula dhacay isla markaana u dilay dhamaadkii sanadkii 2023 ayaa muddo xabsi dheer ah lagu xukumay oo aan doonaya inaan idin wadaago balse marka hore soo dhawaada haddii aad xareysatay DV lottery ama lagu xareeyay sanadkii la soo dhaafay October ilaa November intii uu furnaa maanta waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay shaacisay in la joogo xilligii dadku ay eegan lahaayeen in ay guuleysteen iyo in aysan guuleysan DV lottery-ga horta waa sharci Congress sanadkii 1990 ee meel mariyeen oo National Immigration Act-ga ku jira sidaas darteed 55,000 oo qof ayaa Mareykanku guud ahaan caalamka ka qaata sanad kasta Trump xilligii hore madaxweynaha waxa uu isku dayay inuu joojiyo laakiin maxkamadda ayaa ka hor istaagay walow dadka ku imaada ay yaraayeen hadda ilaa markii xukunka uu la wareegay 3 bilood ka hor oo hadda 104 maalmood aan filayo xukunkiisa inuu jiro ilaa hadda ma uusan ka hadlin arrimaha DV lottery marka waxay u badan tahay maadaama la ogolaaday in hadda la eegan karo in DV lottery sanadkan lagu imaan karo haddii aysan waxyaabo kale aysan maamulka Trump aysan ka soo bixin lama saadaalin karo maalin kasta waxyaabo cusub ayaa ka soo baxaya marka sidaas darteed waa la shaaciyay October labadeedii ilaa iyo sanadkii 2024 ilaa November 5teedii ayuu furmaa marka waa DV lottery 2026 hadda sanadkan lagu jiro dadku waxay si xareysan karaan qofkii guuleystay DS 260 DS 260 inaad ku degtagta maahan waa فومن badan ayaad buuxinaysaa sidaas darteed qofku waa in hadii uu san aqoonin qof yaqaan uu la tagaa marka aad hal page buuxiso hal maalin xitaa qasama inaad buuxiso waa save gareyn kartaa waa u soo laaban kartaa marka arinta ugu muhiimsan waa DS 260 hadii lagu soo xushay sidaas darteed October 1deeda ilaa iyo September 30keeda hadda October 1deeda oo sanadkan 2025 ilaa September 30keeda inta u dhaxaysa ayaa DS 260 ka xareysan kartaa waa qab fiican tahay inaad la sii hormarto maadaama dadka la xulanayo 55,000 ay yihiin sidaas darteed marka qofku waa inuu ka faa'iideysto hadii uu high school ku xareystay hadii uu jaamacad ku xareystay hadii uu ku xareystay work experience shaqo 2 sano ah oo xirfad uu leeyahay ama waa experience-gaas uu leeyahay intaas waxa laga doonayaa in DS 260 ka aad ku buuxiso marka hadii aadan guuleysan 5 bilood kadib ayaa ka harsan October ta soo socota iyo marka la furmaya marka bal mar kale isku day marka dadka waxa rabaa marka bal muuqaalkan kooban oo screen recording kan ka sameeyo waxa rabaa inaan idin kula wadaago qaabka qofku uu website-ka saxda ugu eegan karo in uu ku guuleystay DV lottery ama baqtiyo nasiibka sanadkii hore xareystay iyo in kale bal muuqaalkan ila daawada aan ku soo koobayo sida fudud oo qofku ugu xareysan karo DV lottery daawasho wacan السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada halkan waxa rabaa inaan idinku wadaago DV lottery ama baqtiyo nasiibka sida loo eegto hadda waxa lagu dhawaaqay ku dhawaad saacad ka hor anaga 12kii duhurnimo markay noo ahayd xaqiinana ay ahayd hal saac habeenimo dhinaca East Africa dadka jooga Soomaaliya iyo waliba Nairobi iyo wadamadaasi dadka jooga marka hore muhiimadu waxay tahay horta waa ay fududahay sida qofku uu u eegan karo DV lottery-ga ama baqtiyo nasiibka ugu horeyn horta website-ka bal iska hubi website-ka aad ka eeganayso kii saxda ah ma yahay hadii markii hore midka saxda aad ka xareysatay waa inaad haddana midka saxda aad ka eegataa kuwa badan oo been abuur ayaa jira kuwa dadka lacaga ka qaata ayaa jira hadii adigu xareysatay hadii lagu xareeyaba Electronic Diversity Visa Program oo US Department of State ah waxa waaye dvprogram.state.gov waa inaad ka eegataa waad ku dhufanaysaa marka hore qadku waa iska culus yahay dadka Soomaaliya jooga ama Afrika jooga dad badan ayaa eeganaya anigoo hadda Mareykan jooga ayaa qadka aad iigu culus yahay maxaa yeelay dad fara badan ayaa doonaya inay eegtaan in DV lottery la soo xushay ama ay ku guuleysteen ama aysan ku guuleysanin marka xitaa hadii aadan caawa eegan ama bari eegan ama maalmaha soo socda aadan eegan wali fursad ayaad haysataa marka qasab baahan inaad caawa oo kaliya aad eegan karto sidaad aragtaan hadda qadku waa culus yahay marka
dadku waa ay fududahay qaabka loo eeganayo waa 4 tallaabo oo kaliya oo fudud qofku marka uu eeganayo DV lottery-ga inuu ku guuleystay iyo in kale marka fursadaasi dadku waa inay ka faa'iideystaan qofkii xareystay ama loo xareeyay muhiimaddu waxay tahay in qaabka loo eeganayo ee saxda ah dad fara badan ayaa soo weydiiya sidee loo eegan karaa 4 tallaabo oo muhiim ah ayay tahay inaad qaado marka aad eeganayso DV lottery-ga marka fursadahaas fudud ama tallaabooyinkaasi fudud ayaa loo baahan yahay qofku inuu ka faa'iideysto marka aad ku dhufato marka website-ka oo website-ku uu ku soo kaco tallaabooyinka aad qaadaysa ee xiga waa ay fudud yihiin marka ila socda waxaan rabaa inaan idin tuso hadda website-kii waa uu noo furmay sidaad aragtaan waxaa sidoo kalena noo furmay website-ka halkan ayaad ku dhufanaysaa marka buluuga oo check status ay ku qoran tahay halkaas marka aad ku dhufato kadib waxaa kuu soo baxaya informationkii markii aad xareysanaysay kuu soo baxay oo confirmation numberkii iyo magacaadii continue ayaad kusii dhufanaysaa markan continue markaad kusii dhufatid gudaha ayaad u gelaysaa marka informationkaada halkii aad gelin lahayd ayaa halkaasi kaaga soo baxaysa marka ilaa iyo September 3 sanadka 2026 waad eegan kartaa waa xilliyadaasi xilliga marka dadka ugu horeeya la soo qaadayo bisha 9 ee sanadka soo socda dadka qaar way soo kala horeyn karaan hadda marka website-ka waa uu noo furmay waxa noo soo baxday marka confirmation numberka meeshii aan gelin lahayn last name-ka oo magaca awowga ah magacaada iyo magaca aabaha maan magaca awowga ayaad gelinaysaa midda labaad tan koobaad confirmation numberka ayaad gelinaysaa horay ayaan ugu sheegay dadku markay xareysanayaan waa inay haystaan informationka marka la xareeyo soo baxaya save gareyso emailkaada ku dirso telefonkaada qaybta pictureska ku haysa aday ku taala talaabada koobaad marka confirmation numberka ayaad gelinaysaa talaabada labaad magaca awowga ayaad gelinaysaa magacaadana maahan magaca aabahana maahan tan saddexaad sanadka aad dhalatay ayaad gelinaysaa hadii 1999 uu yahay maalinta iyo bisha ma gelinaysaa sanadka oo kaliya ayaad gelinaysaa midda u dambayso afraadna xarfahaasi ku soo baxayo oo waliba capital ayaad gelinaysaa mararka qaar numbers ayaa la socdo mararka qaarna xarfo kaliya ayaa ku soo bixi kara hadda aniga xarfo ayaa ii soo baxay marka qof aan u xareeyay ayaa rabaa bal hadda inaa eego marka confirmation numberka iyo digital signature-ka way kala duwan yihiin confirmation numberka magacaada oo saddexan ayuu ku xigaa digital signature-kana waa sidoo kalena xarfo iyo nambaro dheer oo isku jira waa u hooseeya marka ma gelinaysid midkaasi signature digital signature-ka confirmation numberka ayaad gelinaysaa confirmation numberku waa inuu 6 iyo 10 ka koobnaada oo xarfo iyo sidoo kale nambaro isugu jira marka hadda aan geliyo waa kan waan geliyay hadda confirmation numberkii waan geliyay sidaad aragtaan 2026 ayuu ka bilaabanayaa ilaa iyo xarafka u dambeeya halkan marka magaca awowga ayaad gelinaysaa magaca awowga ayaad gelinaysaa waan gelinay hadda magacii qofkii aan u xareeyay halkana sanadka ayaa la gelinayaa sanadka ayaad gelinaysaa ma ahan maalinta aad dhalatay kadib xarfahan waa inaad capital ka dhigtaa capital ayaad ka dhigaysaa xarfahan hadda sidaad aragtaan xarfahaas markaad geliso waxaad leedahay submit ayaad leedahay marka sidaad aragtaan submit ayaad ku dhufanaysaa haddii lagu soo xushay selected ayuu kuu soo qorayaa haddii aan lagu soo xulanna not selected ayuu ku tusayaa marka balaan aragno hadda waxa uu na tusi doono okay qofkan ma uusan guuleysan has not been selected ayaa la yiri qofkan lama soo xulan marka afartaasi tilaabo oo fudud ayaa qofka loo baahan yahay in uu maro marka uu doonayo inuu eego in DV lottery-giisa ama baqtiyo nasiibkiisa uu ku guuleystay ama inuusan ku guuleysanin marka hore waxaad gelinaysaa confirmation numberka oo markii aad xareysanaysa aad save gareysatay si ay tusay kadibna magaca awowga magacaadana ma ahan magaca aabahana magaca awowga oo last name-ka kadibna sanadka aad dhalatay kadibna xarfaha ku soo baxaya ayaad gelinaysaa sidaasi ayaad ku ogaanaysaa hadii lagu soo xushay halkaasi waxa ku soo qormaysa selected haddii aan lagu soo xulanna has not been selected ayaa ku soo qormaysa marka waxaan filayaa inay dadku ogaadeen dad fara badanna talaabadaas ay raaci doonaan si ay u ogaadaan in ay ku guuleysteen baqtiyo nasiibkooda ama DV lottery-ga aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta waxaan filayaa inaad fahanteen sida fudud oo qofku uu website-ka saxda uga eegan karo DV lottery inuu ku guuleystay iyo in uusan ku guuleysan marka nasiib wacan ayaan ku leeyahay haddii aad ku guuleysatay haddii aadan ku guuleysanna 5 bilood kadib ayaa mar kale uu furmaya nasiibkaada tijaabi ugu dambeyntii waxaa jiray nin cadaan ah oo magaciisa la yiraahdo Joseph Suba
oo 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 7 maalmood kadib markii weerarkii Xamaas Israa'iil ku qaadeen oo dagaalka hadda Gaza ka socdo uu ka bilowdo uu dhacay ayaa ninkan oo gobolka Illinois deganaa isla markaana gurigiisa uu ka kireeyay qol ka mid ah haweeney Falastiiniyada iyo wiil yar oo 6 jir ay wadatay oo Wadiya Al-Fayumi la yiraahdo ayaa markii idaacada uu dhageysto dagaalkii iyo sida uu bilowday waxaas uu dhageystay ayuu dhowr jeer wuxuu yiri iga guura maadaama Falastiiniyiin aad tihiin muslimiinna aad tihiin marka intii ay isku dayeen inay guuraan ayaa subax intuu u galay midi isagoo wata ayuu markii hore maamada ka bilaabay maamadii markay iska celisay kadibna wiilkii yaraa ayuu intuu u tagay oo 6 jirka ahaa oo 26 midi ku dhuftay waliba mididii oo ka taagan ayaa banaanka intuu u baxay oo sigaar uu iska shitay kadibna boolisku ay halkaas ugu yimaadeen isagoo sigaarkiisii cabaya marka ninkaasi waa la xiray maxkamad ayaa la soo taagay bishii hore xeerbeegti ayaa dambigiisii ku heshay marka waa 73 jir haddana waxaa lagu xukumay 53 sano oo xabsi ah dambiyada lagu helay waxaa ka mid ah dil yahay heerkiisu midka koobaad oo wiilkii yarka uu u geystay oo 6 jirka ahaa oo 30 sano lagu xukumay isku day dil oo haweeneydii dhashay wiilkaasi oo Falastiiniga ahayd oo iyadana 20 sano maadaama uu isku dayay inuu dilo laakiin ay ka badbaaday 20 sano iyo waliba dambi ah nacayb maadaama muslimnimadooda uu ku nacay oo 3 sano marka hadiiba isagoo nool oo xabsi ka soo baxayo 126 sano soo jira ayuu ka soo baxaya amaba waa uu ku dhiman doonaa marka arintaasi hadda xukunkaasi waa uu dhacay waxaana sidoo kale hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka ee CARE loo soo gaabiyay waxay yiraahdeen wiilkaasi yarka waxa uu ahaa wiil waxba galabsan waxaana lagu bartilmaameysaday muslimnimadiisa inuu Falastiini yahay iyo sidoo kale ilmo yar oo la jecel yahay inuu ahaa marka muhiimadeena ama shaqadeena waxay tahay inaan xaqiijino in ilmo kale oo muslimiina aysan sidoo kale la kulmin nacaybka noocaasi oo kale inaan xaqiijino marka wiilka aabihii iyo waliba awowgii iyo maxkamadda maalnimadii shalahayd markii xukunku uu soo baxay kadib waa ay hadleen waxay yiraahdeen arrintan naguma filna xukun yar ayaa lagu riday laakiin waxa ay hadda ninkaasi lagu xukumay 53 sano waana 73 jir odagaasi aad arkaysaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada halkan waxaan rabaa inaan idinku wada waago DV lottery-ga ama baqtiyo nasiibka sida loo eegto hadda waxa lagu dhawaaqay ku dhawaad saacad ka hor anaga 12kii duhurnimo markay noo ahayd xaqiinana ay ahayd 1 saac habeenimo dhinaca East Africa dadka jooga Soomaaliya iyo waliba Nairobi iyo wadamadaasi dadka jooga marka hore muhiimaddu waxay tahay horta waa ay fududahay sida qofku uu u eegan karo DV lottery-ga ama baqtiyo nasiibka ugu horeyn horta website-ka bal iska hubi website-ka aad ka eeganayso kii saxda ah ma yahay haddii markii hore midka saxda aad ka xareysatay waa inaad haddana midka saxda aad ka eegataa kuwa badan oo been abuur ah ayaa jira kuwa dadka lacaga ka qaata ayaa jira haddii adigu xareysatay haddii lagu xareeyaba Electronic Diversity Visa Program oo US Department of State ah waxa waaye dvprogram.state.gov waa inaad ka eegataa waad ku dhufanaysaa marka hore qadku waa iska culus yahay dadka Soomaaliya jooga ama Afrika jooga dad badan ayaa eeganaya anigoo hadda Mareykan jooga ayaa qadka aad iigu culus yahay maxaa yeelay dad fara badan ayaa doonaya inay eegtaan in DV lottery-gii la soo xushay ama ay ku guuleysteen ama aysan ku guuleysanin marka xitaa haddii aadan caawa eegan ama berri eegan ama maalmaha soo socda aadan eegan wali fursad ayaad haysataa marka qasab baahan inaad caawa oo kaliya aad eegan karto sidaad aragtaan hadda qadku waa culus yahay marka dadku waa ay fududahay qaabka loo eeganayo waa 4 tallaabo oo kaliya oo fudud qofku marka uu eeganayo DV lottery-ga inuu ku guuleystay iyo in kale marka fursadaasi dadku waa inay ka faa'iideystaan qofkii xareystay ama loo xareeyay muhiimaddu waxay tahay in qaabka loo eeganayo ee saxda ah dad fara badan ayaa soo weydiiya sidee loo eegan karaa 4 tallaabo oo muhiim ah ayay tahay inaad qaado marka aad eeganayso DV lottery-ga marka fursadahaas fudud ama tallaabooyinkaasi fudud ayaa loo baahan yahay qofku inuu ka faa'iideysto marka aad ku dhufato marka website-ka oo website-ku uu ku soo kaco tallaabooyinka aad qaadaysa ee xiga waa ay fudud yihiin marka ila socda waxaan rabaa inaan idin tuso hadda website-ki waa uu noo furmay sidaad aragtaan waxaa sidoo kalena noo furmay website-ka halkan ayaad ku dhufanaysaa marka bluega oo check status ay ku qoran tahay halkaas marka aad ku dhufato kadib waxaa kuu soo baxaya informationkii markii aad xareysanaysay kuu soo baxay oo confirmation numberkii iyo magacaadii continue ayaad kusii dhufanaysaa markan
continue markaad kusii dhufatid gudaha ayaad u gelaysaa marka informationkaada halkii aad gelin lahayd ayaa halkaasi kaaga soo baxaysa marka ilaa iyo September 30keeda sanadka 2026 waad eegan kartaa waa xilliyadaasi xilliga marka dadka ugu horeeya la soo qaadayo bisha 9aad ee sanadka soo socda dadka qaar way soo kala horeyn karaan hadda marka website-ka waa uu noo furmay waxaa noo soo baxday marka confirmation numberka meeshii aan gelin lahayn last name-ka oo magaca awowga ah magacaada iyo magaca aabaha maan magaca awowga ayaad gelinaysaa midda labaad tan koobaad confirmation numberka ayaad gelinaysaa horay ayaan ugu sheegay dadku markay xareysanayaan waa inay haystaan informationka marka la xareeyo usoo baxaya save gareyso emailkaada ku dirso telefonkaada qaybta pictureska ku haysa aday ku taala tilaabada koobaad marka confirmation numberka ayaad gelinaysaa tilaabada labaad magaca awowga ayaad gelinaysaa magacaadana maahan magaca aabahana maahan tan saddexaad sanadka aad dhalata ayaa gelinaysaa haddii 1999 uu yahay maalinta iyo bisha ma gelinaysa sanadka oo kaliya ayaad gelinaysaa midda u dambaysa oo afraadna xarfahaasi kuu soo baxayo oo waliba capital ah ayaad gelinaysaa mararka qaar numbers ayaa la socdo mararka qaarna xarfo kaliya ayaa kuu soo bixi kara hadda aniga xarfo ayaa ii soo baxay marka qof aan u xareeyay ayaa rabaa bal hadda inaa eego marka confirmation numberka iyo digital signature-ka way kala duwan yihiin confirmation numberka magacaada oo saddexan ayuu ku xigaa digital signature-kana waa sidoo kalena xarfo iyo nambaro dheer oo isku jira waa u hooseeya marka ma gelinaysid midkaasi signature digital signature-ka confirmation numberka ayaad gelinaysaa confirmation numberku waa inuu 6 iyo 10 ka koobnaada oo xarfo iyo sidoo kale nambaro isugu jira marka hadda aan geliyo waa kan waan geliyay hadda confirmation numberkii waan geliyay sida aad aragtaan 2026 ayuu ka bilaabanayaa ilaa iyo xarafka u dambeeya halkan marka magaca awowga ayaad gelinaysaa magaca awowga ayaad gelinaysaa waan gelinay hadda magacii qofkii aan u xareeyay halkana sanadka ayaa la gelinayaa sanadka ayaad gelinaysaa ma ahan maalinta aad dhalatay kadib xarfahan waa inaad capital ka dhigtaa capital ayaad ka dhigaysaa xarfahan hadda sidaad aragtaan xarfahaas markaad geliso waxaad leedahay submit ayaad leedahay marka sidaad aragtaan submit ayaad ku dhufanaysaa haddii lagu soo xushay selected ayuu kuu soo qorayaa haddii aan lagu soo xulanna not selected ayuu ku tusayaa marka balaan aragno hadda waxa uu na tusi doono okay qofkan ma uusan guuleysan has not been selected ayaa la yiri qofkan lama soo xulan marka afartaasi tilaabo oo fudud ayaa qofka loo baahan yahay in uu maro marka uu doonayo inuu eego in DV lotterygiisa ama baqtiyo nasiibkiisa uu ku guuleystay ama inuusan ku guuleysanin marka hore waxaad gelinaysaa confirmation numberka oo markii aad xareysanaysa aad save gareysatay si ay tusay kadibna magaca awowga magacaadana ma ahan magaca aabahana magaca awowga oo last name-ka kadibna sanadka aad dhalatay kadibna xarfaha kuu soo baxaya ayaad gelinaysaa sidaasi ayaad ku ogaanaysaa haddii lagu soo xushay halkaasi waxaa ku soo qormaysa selected haddii aan lagu soo xulanna has not been selected ayaa kuu soo qormaysa marka waxaan filayaa inay dadku ogaadeen dad fara badanna tallaabadaasi ay raaci doonaan si ay u ogaadaan in ay ku guuleysteen baqtiyo nasiibkooda ama DV lotteryga aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta